laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yidhi inakeen baratanne waxaasho inan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddaa la joogay maalin dambe oo haddana safar la joogaa buu yidhi Aisha maantana waa baratamaynaa inakeen waa yara marmarsato may waa baratamaynaa buu yidhi ina dhaqaaji waa la baratamay markana Aisha waa yara cuslaatay oo inantii yarayda fududayd maaha sidii hore way iska bedeshay dabeetana wuu ka dheereeyey nabigu intuu ka dheereeyey buu waliba yidhi tilka bitilka taatii u tur buu nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh midkeen baa arki kari lahaa isagiiyo haweenaydiisu intay dabadaa u yara baxaan inay baratamaan yani waxaa laga yaabaa inay suuradda ninka Soomaaliga agtiisa taallaa inay tahay ninnimo la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nebi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nebi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayh oo ah bashariyada ciddii loo soo diray inuu hago ilaahayba wuxuu abuuray kuwa jeclaa subxaanahu wa tacaala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayh dhaqamaha ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maaliku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamid kunya bay leeyihiin anna kunyo ummu Cabdullaahi buu ugu yeedhay imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray ya Aisha magacoo badh la gooyo magaco inna la tuuro inna yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxa ay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmaya inuu yahay qaab mashaacirta la ilaalinayo Aisha inan yara ay xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tiri tana nabigu isu taago dhinaciisay xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan idhaahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabina waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadiiskii Tirmidhi Albani saxiix ku tilmaamay waa idinku fiican waa kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad يعني مفتاح السعادة الزوجية وشركة reerku nin iyo gabadh isku darsadeen shirkada raasumaalka hantida rasmiga ee haystaan ay ku tijaaraynayaan baynu dhawaal xub oo halku ka bilaabo muftaxa kani mafaatiixdu waa ilka badan bay leedahay waxay tilmaamaan culimadii kamida ataqaadi in isxisaabinta badani taziid almasaafaat bu'da in la isu dulqaato waxyaabo badan isha laga rogo si kalgacalku uu beernaado waxaan ku soo koobayaa guriga muslimka ah waa guri kalgacayl iyo isu uurfayo maan ku nool waa guri naxariis iyo mucaamaladii fiicnayd ee nusuusta quraanka iyo xadiisku sheegaysa ihsaan iyo iisaar iyo wanaag oo soo dhan jira cadaalad iyo raxmo iyo waxa quraanku sheegayo dhan waayo waa meesha la rabo in lagu barbaariyo ubadka bulshada u soo kacaya oo ubadku inuu guriga ka yimaado isagoo yaqaana macna al-hub iyo dadka kalgacalka loo haynayo naxariista cadaaladda dhimirsanaanta afwiga tasaamuxa kullu dhalika nusuusta quraan ee tirada badan la sheegayso ee lagu yiri dadka kala kula dhaqan waxa awla u ah ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay taa nolosha wadaagtaa haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu calayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhamaysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabay saysku tihiin buu yiri arrinkiisa saatahay waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeelabay leedahay yani wax kasta in raali galiyaabaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caanka ah atakabbur bay dhahdaa iyo al-kibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad waxa yar samayso lagu yeesayaa hoos soo dhacday waa uqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan al-inaad madaxdaygo ninkan dabadabasani badan uu ka arko uu ku guumaysanayay aad wax iska dhicisid laakiin guriga dhabtahay waa guriga labada midna ool ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taaca dhamaanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi Muhammad tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu calayhi Muaad ibn Jabal markuu Shaam iyo meelaan ka yimay uu arkay qolo boobabkoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yiraahdaa aanu ku sujuudno oo isku dayay wuxuu nabigu ku yiri salawaatu waxaad sameynaysaa waa maxay qisadii buu sheegay
nabi wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadamuun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhi haddii bashar uun loodhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa loodhan lahaa ragiina u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jira